إيران ما haysto hub nukliyeer. Sheekada Chapsile ee ku saabsan bamka nukliyeerka Iiraan ayaa la sheegay in ka badan 40 sano. Iiraan si dhaqso ah, dab ahaan berri, waxay yeelan doontaa hub nukliyeer. Laakiin maalin Chapsile leh ma aysan iimaan. Ma ogtahay sababta? Haddii Iiraan doonayso, waxay horey u haysan lahayd hub nukliyeer. Teknolojiyada hodminta uraniumka waxay jirta in ka badan nus qarni. Ma aha siir, ma aha kuwa aad u adag. Vulan kala duwan in ka badan 20 shirkadood ayaa ka shaqeeya hodminta uraniumka. Marka laga eego habaabka, samaynta uraniumka xubka iyo dhawaaqida guryaha waa isku mid. Waxaad iibsataa qalabka, waxaad heshaa alaabta jeeriin, waxaad shaqaalaynaysaa khubaro, waxaadna helaysaa badeecada ugu dambaysa. Shunaqabatayn iyo mamnuujo kasta waa la marag furayaa. Had iyo jeer waxaa jira iibiyayaal danaynaya iyo dhexdhexaadiyayaal xeeladaysan. Su'aashu waxay ku saabsan tahay lacagta kaliya. Laakiin 40 sano, Iiraan ma aysan awoodin inay hesho xubka nukliyeerka, sababtoo ah ma aysan qorshaynin inay sameeyaan. Hawlgarada dagaalka ee kavanka deriska, xubka nukliyeerka luma baxna. Waxaad heli doontaa waxyeero ka badan faa'iido ka timaada guusha. Xubka nukliyeerka wuxuu qaataa lacag badan. waa sahlan tahay oo jaban in la isticmaalo xubka jacdiga ah. Midka xubka nukliyeerka wuxuu u baahan yahay Iiraan si uu u jabsigeliyo Maraykanka. Sidaas ayay Iiraan u jabsigeliyaan Maraykanka, hana soo dhexgelin hub aad u xoog badan ayaa noo yaala. Dadka jacdiga ah waxay ka jabsadaan bamka nukliyeerka. Si kastaba ha ahaatee, madaxda nukliyeerka ah ee lagu buuxiyo uraniumka xubka ah nafteeda ma ahan khatar. madaxda waxaa loo baahan yahay in si gaar ah loo geeyo bartilmaameedka. 3 nooc oo qaadayaal ah ayaa loo isticmaalaa in lagu geeyo hubka nukliyeerka. Kani waa diyaaradaha istiraatiijiga ah ee duqaynta fog. Kani waa duuno badeed oo masaafo dheer leh. Kani waa gantaalada ballistika ee u dhexeeya qaaradaha. Immisa ayaa Iiraan leedahay doono badda oo leh masaafo dheer? Halna midna. Iiraan waxay leedahay kaliya doono badda xeebaha iyo kuwa yaryar iyo dhexdhexaad ah oo gobolka ah. Immisa ayaa Iiraan leedahay gantaalo ballistig ah oo u dhexeeya qaaradaha? Halna midna. Iiraan ma samayso gantaaladaas. Iiraan ma keento khatar military oo ku wajahan dulka iyo dadka reer Maraykanka. Iiraan ma awoodo inay daawad weyn u geysato Maraykanka, xitaa haddii ay haysato madax gantaalo nuclear ah. Marka maxaa sabab u ah in Donald Trump uu Iiraan ku sheegay khatar u ah Maraykanka oo uu bilaabay howlgal military? Sababta waxay ku jirtaa hydrocarbons. Iiraan waxay ku jirtaa kaalinta 3aad ee adduunka kaydka saliidda iyo kaalinta 2aad ee kaydka gaaska dabiiciga ah. Maanta saamiga Iiraan ee suuqa caalamiga ah ee saliidda iyo gaaska waa mid yar. Iiraan laguma ogolo in ay si badan u dhuufiso. Saliidda iyo gaaska waa aasaaska dacanka casriga ah. Saliidda iyo gaaska waxay u baahan yihiin dhammaan. Hydrocarbons waa hub dhaqaale. Haddii Iiraan ay iibiso saliid iyo gaas badan, waxay noqon doontaa mid xoog leh oo saamayn leh. Maraykanku waxay Iiraaniyiinta u ogolaadeen inay doobo badan duubaan ilaa Iiraan uu maamulayay boqor u hoggaansan. Ka hor kasaankii Islaamiga, Iiraan waxay ahayd dalka labaad ee adduunka marka la eego doofinta saliidda. Laakiin markaas Iiraaniyiintu waxay joojiyeen inay degaystaan Ameerika, waxayna ka saareen shaaha. Jawaab ahaan, Maraykanku waxay ku soo rogeen cunaqabatayn iyo xadidaad doofinta saliidda ka timaada Iiraan, sida ay awoodeen. Maanta Iiraan xitaa ma aha mid ka mid ah 10 doofiyayaasha ugu waaweyn. Sababtoo ah Maraykanka waxay khatar ku tahay farsiyiinta madax bannaan ee haysta kayd weyn oo hydrocarbons ah. Dab ahaan kacaanka Islaamiga ah ee Iiraan wuxuu nolosha u kordhiyey Midowga Sofiyeeti. Sababtoo ah hoos u dhaca sahayda qiimaha saliidda ayaa kor u kacay dhowr jeer. Tani waxay u ogolaatay Midowga Sofiyeeti inuu iibiyo saliidda iyo inuu iibsado cunto iyo teknolojiyad. Maxaa xigaya ka diji doona Iiraan? Xulashada ugu fiican ee Maraykanka waa inay si buuxda u xakameeyaan duufinta saliidda iyo gaaska Iiraan. Tani waa heshiis uu Trump ku baaqayo. Iiraanayaashu waxay sameeyaan afkambi dowladeed oo mar kale noqdaan kuwo u hoggaansan. Maraykanku waxay go'aamiyaan xadidaadaha iibka saliidda iyo gaaska dabiiciga ah. Haddii ikhtiyaarka heshiiska iyo afgembiga uusan shaqayn, markaas Maraykanku waxay u abuuri doonaan Iiraan aag fawda ah. Si doofinta xaddi weyn oo saliid iyo gaas ah oo ka yimaada Iiraan aanay suurtagal u noqon. Fawdo ayaa ka dhalan doonto gudaha Iiraan iyadoo ay sababi doonaan xooga kala duwan oo mujaarad ah iyo kooxo burjad ah. Maraykanku waxay isku dayi doonaan inay kiciyaan khilaaf u dhexeeya Iiraan iyo derishooda si ay u abuuraan chaos.
sidaas darteed bamka nukliyeerka ee Iiraan waa khuraafaad. Dhammaan arrintu waxay ku saabsan tahay saliidda iyo gaaska dabiiciga ah iyo ilaalinta danaha Maraykanka.